مثلا واحد أركيسا سيدو نعم شامسكاي تلمامي دولة دن أما ومدر دن أما السيستم دن والنظام الملاهي بني آدم كوسمي إن دتك الله والله الله مشغوليه دون دن أويسا محل أويسا كبد بالله ما براد أحمر طيب how is it سيكولتي آدنا دن أو جرام فردية أو المدو كدا إيشو أو وحين لا أويا نايت هاي كبد بالله ما براد أحمر طيب تيم هبل بقى تيم هبل كبدية والنظام الملاهي كونسرتس نمن بها هي سيئة واجي هره وحلوها سمعنا لها جيرين أدب معنا له نك تاجن حتى تو فرصته وحكوا هالليو قولي يوم كصباحي وضدان صامري قاعد ده جيرة أنت هسوق هالليا ولا سوا حلتهم هي وحوشية يا رياضة وكوا هالليا ونوعها وأنت هسوشية دبتنا أمد دور دب صباحي صدق كordam داونية وحين يسوي ديننا مسابقات بقى تي في هذا كصباحة مسابقات كم قرنا يسوي حيين ترتنسين كذا وقروح بدن دوني ذا لغة ترتمية مركز محللين صافر سنة دايما السماء در كأن ريدة تانية يسوي قروح بدني بليونو كهلي ربا قروح بدن أي قدوني ذا وقروح بدن له خيدة دوني ذا وأجمد في عن له هذا قياس بني آدم كشقين إياه والله عقله بحين إياه وأنت الله سقي ما دري يدبي يسع إياه أي وحلا مذا لقى ورميه واحد هذا وحى ساكر لي واحد كنت المامان celebrate worships ضك عنك هو العابده قف بحية شاري سروالي كوفيد مقع كو قرية هي مجرد إن مقع عاسكو قرية هي بكقيمة بداية نركا كلاردن هاي تلمام يسوي سراويل بكم إذا نرك دبض لقى حده وحال الربان نجس كبراند كي ستايل غطسه ونجس كي بيكهام حدنا ما كريستيان حدنا سيل غطس يهبل نجس كي صادو حدته وين سروالك هاصلو يردقا دبتنا براند نيم كنجس كوينو موقدا نلش مركي حكا قادو dadka tawaafihida adarkaysa waa la boonbooninayaa ilaa ay noqdaan mararka qaarkood ilaahyo la caabudo sala basiita maalin dhaweyd nin kubadda ciyaara oo Ronaldo Cristiano Ronaldo la yiraahdo ayaa soo fadhiistay wuxuu rabaa inuu warbixin dhiibo laba midho Coca-Cola hortiisa yaaluu ka qaado dhulku dhiga stock marketkii Coca-Cola 4 billion buu khasaaray 240 bilyan bay joogtay 238 bilyan bay noqotay Cristiano Ronaldo muxuu yahay waa waaxid taafi آخرية دون تونا وحكومة سوكر كبدوا الله ذي يقارنا لكن نكا كبد الله ذي يقارنا هدو كولاها هدول كردقو هو بيو صاري أي شركات كي دوني دقوا وينا متكمدي 4 بليون والله على خسارت وتوافيه ده سيدا لو بومبونية بكتو سنسا لكن كاسوا مظاهرته محاكرة الشيء waxaa ka dhashay in dunida suicide-ku ku bato dadku ay garan waayeen waxay u nool yihiin ilaa yahu ay tilmaamto boqolkiiba 40 maxaa la yidhaahdaa 40kii sekandba qof bini aadam inuu isdilo oo weliba dadkaasi waa western world-ka dunidan saddexaad iyo dadkan gaajaysan wax badan maaha waa dunida horu martee la sheegayo 40kii sekand kastaba in qof isdilo waxaa soo baxay self injury disorders waxay yidhaahdaan qoladan acsaabta ka shaqaysa imika xanuuna ay daweeyaan baa jiro la yidhaahdo NSSID waa self injury disorders waa non suicidal self injury disorders waa maxay waxa soo batay dad kale noloshu markay macna beeshay isaga isku ciilbaxaya marka uu isjaraya
ama bir buu intuu dabka geliyo heat branding uu isku calaamadinaya ama markuu nolosha ka quusta buu qolo midiya haysata intuu tagaabo odhanaya sawirra igu dhiga kuwan cayaaro Soomaalidan aragay jirkooda wada sawirka madow yahay waa systemka kan waa qof raba nolosha si uu uga raysto inuu ku cilbaxo jirkiisa wala daldaloolinaya wala sawiraya sawir baa lagu dhajinaya waxay sameeyaan qaarkood madaxay darbiga ku garaacaan way isdhaawacaan nabarrada caadiga bay u diidaan inuu bogsado qof nabarkii ku yaalay ka fujinaya mar kastaba si aan u bogsanin waayo wuxuu ku leeyahay xanuunkan baan rabaa inaan ku ilaabo dareenka madaxa iga haya dunidu inay bilaan nolol tahay nolosha macna darrideeda alam aan isku ilowsiyaan u baahanahay darfar wiskoo goynaya dadka bay dhahaan self harmingka sameeyay ama self hurtka dadka iyagu isdhaawacaa 10 jeer ilaa 20 jeer bay ka badan yihiin kuwa isdila haddaynu idhi every 40 seconds qof baa isdila markay kuwani 20 jeer ka badan yihiin secondkiiba imsaa isdhaawacda waa dhaawacu ka saha adigoo ogaan isu dilaya Soomaalida Soomaad maqli jirin koonfurta siiba qolo intay cayaarto tidhaahda waan bururo midi isku jarjarta waa midi isku waa burur nooca u yaala noloshu uu ka quustay dabeetana isaga isku bururaya oo midi isku googoynaya waxaa soo dhamay waxay daba yaalaan erayga aan nolosha macna beeshay nolosha dhadhan la emptiness baan dareemaya madhnaan baan dareemayaa noloshaan macna lahayn maxaan ka noolay kolleyba waa dhiman doonaaye ilaahina subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya iyadoo fudud waman acrada can dikri faina lahu maciishatan danka baa ilaah yidhi ciddii ka jeesata aniga xuskayga waxay leedahay maxay nolol aad u cidhiidhiya baa ilaah yidhi waman yacshu can dikri araxmaani nuqayid lahu shayطaana fahuwa lahu qariin ilaahay weynidiisa iyo xuskiisa iyo nolosha jidku u dhigay ka jeesigeedu waxay tilmaamaysaa baa la leeyahay kaa shaydaan baa lamaano looga dhigaa shayaadiin baa waxaan u waxyoota walidaalika baa qur-aanka faatixada ducada ilaahayna baray maalin walba inaynu idhaahnaa waa maxay waa inaynu nolosha macnaheeda fahmniya xagga loo socdo ihdina asiraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين مالك كستبا لينيدي واحد صلاه كنيسان او دكو دعيستا الى جدك قمنتس dadkani nolosha jidkeedii bay waayeen sida awgeed dadku markuu ruux ahaan madho ghidaa ruuxiya la waayo ilaahay quraanka wuxuu inoogu tilmaamayaa laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dhikrukum afala tacqiluun laakiin dadku markay madhaan ee jidka ilaahay ka lumaan ee ay garan waayaan waxay u nool yihiin noloshu cabad bay ka noqotaa markaa dheeldheel waa ninkaa dheeldheelaya maryihiisa kolba ku dheeldheelaya madaxiisa ku dheeldheelaya daba socda qof macno liita qof aad u macno liita qof aan noloshu dhadhan u lahayn haba yaraatee waxay tay nolosha waxa uu muhiimsani waa inaad ilaahay garato يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين إلهي وحلي يدضوا يا أيها الناس واردضوا حق إلهي وحيدين كيم موعظة وانا إلهي حق سيدين كيم إيوه شفاء لما في الصدور ذكرني ثون المدوب كجرا وأن إنما إفتن كموقنين waanu garanaynin meel uu socdo saaka haddaad baxdo asaanad garanayn meel allaaliya meel aad ku socoto haddana aad qasbantay inaad socoto maxaad dareemi lahayd nolosha waa caynkaa haddaad nooshay waxaad u nooshay inaanad garanayn
meel aad u socotana aanad garanaynin wax kaa dambeeyana aanad garanaynin waa nin gudcur gudaya baad meel madow baad socotaa ilaahay wuxuu leeyahay waxaasoo dhan mawcidaa kaga caafimaadaan shifaaun lima fi suduur wixii laab ku jiray wax lagaga caafimaado baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala baa idiin soo dejiyey iyo wahudan waraxma hanuun iyo naxariis laakiin ciddii ilaahay naxariistiisa ka jeesataa waa luntaa dadku inuu sidan u lumo maxaa keenay kow waxaynu leenahay caqiida xumo dadka maanta lagu dayanayo western civilization baa dunida horseed ka ah oo hor socda western civilizationna maanta waxa ugu weyn almadhab الnafci madhabka ah wax walba in maado lagu qiimeeyo oo maxay iga soo gelayo inaad tidhaahdo aadamaha inay maadadu ka qiimo badato aadamaha inay maadadu ka qiimo badato dowladaha horu maray baan laba tusaale idinka siiyey in bini aadamka maadadu ka qiimo badantay kambanigan ford la yidhaahdo ee maraykanka ah ayaa gabadhi soo saaray gabadhidii uu soo saaray baa cillad bireegyadiisiyo wax ku saabsan baa la ogaaday dabeetana waa la suugareeyey waa la ashtakeeyey maxkamaddii dalka maraykan waxay ku xukuntay compensation inuu bixiyaan magdhow oo dadkii shilkaa galay gaadhigiinaa geliyey markaa inaa bixisaan magdhowgii bay aqbaleen shirkaddii baa fadhiisatay waxay isweydiiyeen 12 milyan oo gaadhi baa suuqa ku jira 12 milyan oo gaadhi inaynu soo celinno kharash badan baa ku baxaya baa la yidhi laakiin inaynu dadka layno oo lacagtooda bixinaa ka kharash yar dadka in la laayo oo lacagtooda la bixiyaa ka kharash yar saa daraaddeed waxay go'aansadeen dadka wixii dhimanaya ha dhintaane compensationka aanu meesha ku haynaynaa waanu uun kii dhintaba oo iska bixinaynaa inaanu kii dhintay beersadka dhimanaya qiimahooda bixinno waxay tilmaamaysaa bay leeyihin aadanuhu valuega uu meesha ku leeyahay qiimaha bini aadamka uu ku leeyahay qolo kale waddankan Polandka la yidhaahdo ayaa malaa sigaarka hal la joojiyey waxbaa laga hadlay dabeetana kambaniga sigaarka iibiya wuxuu keenay research baxfi uu leeyahay dowladda waxa u fiican inay sigaarka daasato oo waayo sababtan la leeyahay sigaarku waa sun oo caynkan oo kasar buu keenaa dowladda kharash badan buu ka hayaa shaakil maaha bay leeyihin lacagta idinka soo gelaysaa ka fiican oo sigaarka lacagta ka soo gelaysa dowladda waa maxay waxay dhahdeen marka kharashka koska la eego sigaarku dhibtuu keenaya faa'iidadu keenaya badan maxaa u malaynaysaa faa'iidadu keenaya inay tahay faa'iidada ugu badan ay xisaabiyeen waxa weeyaan dadka sigaarka cabaabay yidhaahdeen 10 sano ay ka da'yar yihiin dadka kale caadiga ah mostly bay yidhaahdeen sida caadiga Yurub benshanka 65 67 ma lagu galaa dhimashadooda waxay qiyaasaan average inay 78 years tahay 10 sannadood bay dawladdu benshan dadkaas siisaa 10 sannadood bay guryo iyo caafimaad iyo mushahar siisaa intaasaa idinka maranaysa bay yidhaahdeen intii benshankaanu kharajinaynaa dadka haddii sigaarka loo sii daayo waxaa meesha ka baxaya maxay 10 sannadood intii noolaan lahayd macnaheedu waa maxay beesadaa ka qiimo badan qofka bini aadamka ah haddii lagu xaaqi karo oo lagu marin karo oo lacag lagu helayo waa inaad dhimataa qaanuunka dunida u yaalla waa kaa waa inaad dhimataa idan madhabka nafciga ahi ee yurub ay haysato ama ninka cadi u haysto ee xaggana soo faafaya waa madhabkaa keenay waxa qure uu bini aadamku qiimanaya inay maadada noqoto noloshuna inay macno beesho caqiidada iyo diinta iyo aakhira iyo waxaana in la ilaabo ilaahina wuxuuna leeyahay faman yamshi mukibban calaa wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa war ma dadka kuwa madaxa ku socdaa hanuunsan mise kuwa qumaatiga u socda waxaan leenahay noloshu haddii aad garan weydo waxaad u noosho caqiidadu lunto
kuwa ugu waaweyn ee aqoon-yahanada maanta dhalinyaro badan ay daba socoto Richard Dawkins professor macruuf oo la yaqaano selfish gene ku caan baxay ayaa waxa la weydiiyey noloshu maxay qiimo leedahay agtaada nolosheenu maxay qiimo leedahay wuxuu ku jawaabay waa meaningless noloshu macno ma leh idan haddii lagu buufiyo sida quraanjada macno ma leh waayo khayr iyo sharba ma jiro agtiisa khayr iyo sharba ma jiro Hitler ma la ceebayn karaa bay yidhaahdeen haddaynu saa u eegno waxay leeyihin maya haddaynu saa u eegno waa maya soo duuduubo jaamacadkan maraykan mid ugu weyn kuwa ugu waaweyn ka mid ah Hopkins University ayaa ardada ku jirta waxa la weydiiyey waa maxay waxa ugu fiican aad raadinaysaan boqolkiiba 67 baa waxay ku jawaabeen inaanu nolosha macnaheeda fahamno waxaanu u noolay inaanu garanno qiyaas arday dhan oo jaamacadaha dunida kuwa ugu waaweyn mid ka mid ah jooga oo leh waxa ugu weyn aan rabno inaanu ogaanaa waa inaanu nolosha macnaheeda fahamno maxaa loo nooliyey Viktor Franklin in la yidhaahdaa wuxuu leeyahay ardayda maraykan aan wuxuu dhigo boqolkiiba 55 waxay dareemayaan buu leeyahay inay noloshu macno lahayn inay noloshu empty inay maran tahay saashay isweydiinta le waxa weeyaan dadka maran ku dayanaya iyagoo halkay tegayaan marka ninka nin maran daba socda nin waalan haddaa daba gasho meelaheennan waxaa caan ahaan jiray nin xanuunsanaya oo ama maryo uskagle sita ama maryo dildilaacsan sita ama raamale sita laakiin markaad aragto nin guri ka soo toosay oo lacag haysta oo raamale ama maradiisu dildilaacsan tahay wuxuu matalayaa dowrkii ninkaa waalan unde wuxuu arkaa inay tani macaan tahay tiisaa dhadhan yeelan weyday oo tan ninkaa xanuunsanaya ayaa la macaanaatay waxana waa la sameeyaa matalan bahalkan yare dhalinyarada ay ku dawaqdee la daawado ee facebookyada iyo waxa kan khubara ka dambeeya tijaabiye inay bini aadamka sidee baad addicted u noqon lahayd sidee baad soo waxyaabaan maandooriyaasha marka la cabo marka dambe qofku addiction buga idmaan la qabsi buu gaadhaa waxaa ka dambeeya niman waxay yidhahdaan attention engineersku berigii hore style engineerska u kharash badnaan jiray attention engineerska imanka ka kharash badan bay yidhahdaan style engineerku waa kuwa naagaha iyo ragga kolba dhinaca qaawiya ee maryaha u dildilaaciya iminka kuwa waxa ka lacag badan injineerada bay yidhahdaan attention engineerska kuwan dadka maankooda gada waxay leeyihin waa engineering ah qofka inta halkaa la qabto ama halkaa lagu dhago in bini aadamka la wadi karo sideen dadka u wadi karnaa raqma anfihi attention engineerskaasi waxay isticmaalaan waxay ku tilmaamaan behavioral psychology waxa dhaqanka bini aadamka psychology-ga ku saabsiisan dabeetana waxa la isku dayayaa sidii dhaqan lagaagaga dhigi lahaa waxa inaad ku dhigto aanad ka foqin khubara meel u fadhida sidaad addicted u noqon lahayd sidaad mudmin u noqon lahayd waanay ka dhigeen runtii dad badan maanta waxaa laga yaabaa inaanu gamayn haddaan moobilku dhinaciisa oolin bale waxaa laga yaabaa habeenkii hadduu baraarugo inuu eego wal wixii soo dhacay intii hurday waayo waxay gaadheen darajo ah inaanu noolaan karin inuu Facebook gala mooyaane dadka ugu badan ee la daawanayaana maxay yihiin waa kuwa bilaa macno ah مثلا كريستيانو رونالدو انستغرامkiisa 300 milyan oo bini aadam ah followerka ayaa daba socda wuxuu ku soo kordhinaya aqoonta uu dunida u waday uu soo kordhinaya maxay tahay
saddex boqol oo milyan oo bini aadam ay ugu xidhan yihiin ee u daba socdaan wuxuu soo qora bay eegayaan xaqiiqadu waxa weeyaan indhahan maaha bini aadamku meeshuu beelaa ee kuwa la beelaa waa kuwa kan da'yar badan oo maanta hargeysa iyo dhulkan degan waxaad mooddaa inay beelayaan indhaha hoose inay diin iyo qiyam iyo caqaa'idday rumaysaneen inay lumayaan inay milmayaan waa imika hargeysa haddaad dhex marto waxaan is leeyahay dhallinyarada inta dhafoorka xiiran laa ka badan inta caadiga u xiiran haddaan labadaasi dhinac dhigo haddaad weydiiso maxaad u xiiratayna qofka jawaabi garanaya waxa laga yaaba inku idhaahdo waa styleka dambe waa qaabka dambe wax ka rooreed inuu idhaahdo waa waalida dambe koox waalatay oo nooca kana ayaa sidan madaxooda ugu faygaray anna waan ku faygaray inuu yidhaahdaaba ka rooray ayuha alaxiba war badan oo tafaaha ah oo waxaa ku saabsiisan 26 bage baa halkan ku jira oo ninka baasha diyaariyay uu ii dhiibay 26 pages waxaa ka warramaya laakiin waxaan is leeyahay tafaaha intaas idinkaga filan madnaan intaas idinkaga filan laakiin waa inaynu isweydiino maxaa dawa ah agteenna waxaa qiimuhu ku yaraaday ilaahay kitaabkiisa kitaabkan waxaa soo dejiyey rabu samaawaati walard ilaaha caliimun khabiirka ah dunida tan dhisay waxa u fiican garanaya aadanaha abuuray waxa ku habboon garanaya intaynu kaa dhinac marro ayaynu waxaynu raacaynaa aadanaha kuwii ugu liitay iyagu ay ka qaylinayaan